yahay in ka badan 200 oo dhaqameedyaha ka soo jeeda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo labadii maalmood ee aynu soo dhaafnay waxa ay ka hadlayeen magaalada Jiga waxa ay soo saareen baaq ay gogol ugu fidinayaan dhammaan dadka u dhashay deegaankaasi haddaba markii uu shirkaasi soo gabagaboobay ayaa waxa aanu wareysanay Garaad Kulmiye Garaad Maxamed Garaad Dool oo u waramay wariyaha BBC-da ee Jiga Abdirashid Sheekh Maxamed Xikam xaaladda dalkeenu uu ku sugan yahay waad ogtahay dalka Itoobiya isbedelada ka dhacay dhanka dimuqraadiyadda dhan walba ah si marka hawlahaas oo dhan looga tashado dimuqraadiyaddu dhinaca fiican iyo dhinaca xunba way ku saameynaysaa ummaddu maanta waxay u baahan tahay midnimo ummaddu maanta waxay u baahan tahay xaggay joogto inay ka sii dhaqaaqdo inta la sameeyana dadkii deegaankan u dhashay fikirku doonay ha qabo inuu yimaado oo taladiisa ku daro arintan goorma idin ku dhalatay haddaad tihiin hogaamiyaasha dhaqanka waayahanba way soo socotay waan isweydiinay maalmahanba waan ku jirray in talada loo baahan yahay baan isla garanay taaweetaan baaqa ugu jeedinayno iyadoo xaaladda wadanka hadda uu ku jiro ay sabab u tahay in shir hadda oo kale sidan oo kale la isugu yeedho oo la yimaado oo laga wada tashado wax walba oo deegaankan dan u ah shirkana waa goorta tiraan dadku ay soo yimaadeen horta shirku wuxuu dhacayaa August 5-teeda cidaan u dirayna waxa weeye cid walba oo Soomaaliya oo deegaankan u dhalatay haday mutacallim tahay haday mucaarid tahay haday siyaasi tahay haday group tahay haday shakhsi tahay cabanaya waan ognahay hadda wadanka wax ma kala qarsoono qolaad sabab joogto odayaal siyaasiyiina diaspora jooga qolaad asmara joogto idinku siyaasadda mid ka madax banaantiin misaad ku dhaxmirantiin odayaashiina Jiga jooga ee adigu kow ka tahay annaga odayaal dhaqan baan nahay dhaqanka iyo siyaasaduna isku dhaxmilmaan waxaan hadda dadka ugu yeedhaynaana waxa weeye war dalka ha laga tashado dalku annaga odayaalka ah ummadii la hogaaminayay ama raba ka hogaamiya uu hogaamin lahaa baan annagu nahay ummadda xaaladda maanta wadanku marayana uu ka weyn yahay siyaasad iyo waxa masiirkii ummadda in laga wada hadlaa loo baahan yahay waad ogtahay in wadanka transitional ku jiro arintan miyana ku fiicnayn in dadka siyaasiyiinta ah ee waliba siyaasadda kilka hogaamiya inay baaqan jeediyaan miyana ku haboonayn cid horta wax iska leh waa annaga odayaasha ee dalkan leh shacabka iyagii weeye wixii u fiicanna garanaysa dawladdan ugu baaqaynaa mucaaridkaan ugu baaqaynaa muxaafidkaan ugu baaqaynaa kaliya mucaarid iyo muxaafid ma nin walba oo cilmi leh oo deegaankan u dhashay oo danaynaya ummaddan maanta u baahan tahay taladiisa inuu ku waxeeyo waqti baa la soo gaaray waqtiga wixii ka dambeeya sidii loo jaan qaadi lahaa inta la qaato weeye dad badan waxay ku oran karaan xilliye ka qalafsan xilligan uu deegaanku soo maray hadda isbedel siyaasadeed oo waliba aad moodo inuu dhulka yaalo aan watashana aba Itoobiya ka curtay xilliyada maxaa dad baaqan ugu jeedin weydeen xilligan maanta xilliga xun ma jiro annagu saan qabno xumi kolkaan ku leeyahay wadankii dimuqraadiyad baa ka dhalatay waa run xumi aan ka dayrinaya ma xaaladda ka dhalatay laakiin xaalad u baahan in laga wada tashadaan ku jiraa dagaal baa dhinac ka socda dadkii bulshadii dagaal baa ku socda qoomiyadaha u dhaxeeya ah dalkii wali ma wada degin oo dimuqraadiyadii iyo wixii dhalay wali adsaba iyo hoos iyo wanaag umbu shacabkii muujinaya maxaa iman doona sidee wax u dhici doonaan dadkii Itoobiyaanka ay wada kala afkaarta duwanaa oo dhan baa wadanka loo yeeray afkaarta iyo midnimada iyo qoomiyadnimada idinkuna baaqa siyaasadeed dawladda federaalka ugu yeedhay kaale leedahay idinkuna qayb ka tirmiyaa dabcan sidii wadankii iyo deegaankii looga tashado marka aan ka tirsanahay dalka maadaama aan ka tirsanahay taladiisa waa inaan wax ka yeelana sidii awal hore 1990kii dhacday wax lala soo tashaday in nololo iman ma bal ka waran dadka aad u baaqayso markuu yimaado waxa laga yaabaa dad damac siyaasadeed ama maskax siyaasadeed ay ku jirto oo damac siyaasadeed ku jiro dadkaasi waxa laga yaabaa inay siyaasadda deegaanka dadka ay isku wanaagsaneen oo isku khilaafsan yihiin maxaad u damaanad qaadi kartaan damaanad buuxda annaga bixinayna odayaashii deegaanka aan nahay dalkan annaga iska leesan hadda ka hor ka sheekay dadka maamulana waa wiilashayadii kuwaan u yeedhanaynaana waa wiilashayadii saacadan qarnigan 12aad Itoobiya isbedelkan hadda ka dhacay waxa weeye wada hadal iyo isqancin baa ay wadanku ku socdaa in la isqanciyo ninku haddii uu damac siyaasadeed leeyahay xeerar iyo shuruuc baa wadankii taala xeerarkii iyo shuruucdii wadanka inuu soo maro uu ku tartamo cidna uma diiday waraysigaasi aad maqasheen waxaa dood ka qaba oo ka jawaabay Abdirashid cali Shoocaac oo kamid ah xubnaha ururka dulmidiid oo u dhaqaaqa arrimaha deegaanka Soomaalida BBC-da ayaanu la hadlay walaal arinta ayada ah baaqa xalay waan maqalay odayaasha meesha ka hadlayna waxaan aaminsanahay inay yihiin odayaal qasban oo aan haysanin xorriyad ay wax ku baaqaan ama sida ay sheegeen ay amniga dadka ka soo qaybgalaya shirka ay ku baaqeen ay ku damaanad qaadaan soo ma aha arrin bisayl iyo isbedel muujinaya in dadkii Jiga joogay ee odayaashii ahaa iyada oo dawladda og ay dawladda ka warhayso inay yiraahdaan gogol baan fidinaynaa haddii mar dawladdii ay gogol fidinayso oo dadkii cabashada ay ka qabteen maamulka ahaa ay gogol fidanayaan oo wada hadal ogol yihiin idinku sababta aad ku diidaysaan maxay tahay soo wixii aad ku baaqayseen in la wada hadlo wixii meesha ka jirana miis lagu wada dhameeyo Soomaaliya
walaal waad mahadsan tahay waana sida ay tahay laakiin gogasha dadka dibadda jira loogu baaqayo ee ganacsadaha siyaasiga iyo dhalinyarada magaalada Jigjiga ku sugan amniga aan la siinayn muxuu yahay anna waxaan leenahay dawladdu marka hore iyo odayaashu laakiin kuwa ku baaqay Jigjiga joogan kuwa ku baaqay waxaan aaminsanahay dawladda laftigeeda inay tahay TV-ga dawladda ayaana laga soo daayay waa barnaamij uu dawladdu ay wadato inta badan qorshaha ka dambeeyana wuxuu yahay shirweyne kooda ka horeeyay oo ku baaqnay bishii hore oo ka dhacay magaalada Diradhaba in mid kale laga garab sameeyo waxa laga yaabaa inaydan taariikhda la socon laakiin meel kasta oo dadka dulmiga diidan Abdirashid haddii gogashii dawladda ay fisa diideen idinku maxaa xal ah oo aad haysaan oo lagu bedelanayaa arrinkan maxaad halkee wax ka bilaabaysan walaal maanaan badiidin hadalka saad u dhigtay anuu gogol maanaan diidin laakiin waxaan leenahay amniga meesha ayaan sugnayn gogasha ma ogashin gogasha waa gogol baaba taalaba oo taa ka horeysay laakiin gogasha dawladda ma ugu wacdeen gogashan dawladda waan ugu yeernahaa garaadada waan ugu yeernay ilaa madaxweynuhu gogasha Diradhaba way imaan karaa hadduu nabad iyo wanaag rabo waan mana diideyno waxa aan dalbanaynana waxay tahay maxaabiista in la sii daayo dadka xaqdarrada ku xiran in Etoobiyada kale isbedelka ka dhacay uu Jigjiga gaaro dadku fikirkooda si xor ah u cabiri karaan ka Diradhaba maxaa laga filayaa yaase ka soo qayb galaya dhinacyada ka soo qayb galayaan oo aan lafma ka mid tahay may walaal oo nalaf ma aaminsan inay kamid tahay darafyada ka soo qayb galaya sababtoo ah oo nalaf waxay ahaayeen urur u dagaalamaya gobolkaas madax banaani inuu ka qaato Ethiopia intiisa kale waxayna dagaalkoodu ku wajahanaa dawladda Ethiopia guud ahaanba sidaa darteed oo nalaf waxay la dhiil garaynaysaa sida aan qabo dawladda Ethiopia inay heshiis la gasho ay wax isku ogaadaan laakiin shirkan waa shir shacabkii deegaanka iyo xubnihii ka tirsanaa jiray xisbiga deegaanka maamula oo hadda asagu doorasho wax loogu yeeray doorasho asagu ku guuleystay ilaa doorasho la gaarana xisbiga dastuuriyan way adag tahay marka waxaad leedahay xisbiga dawlad deegaanka ka dhisan dad xubno ka ah baa meeshaasi tagay waanad ogoshiin xisbiga laakiin hoggaanka hadda jiraadan ogolayn may waxaan leenahay waxay u baahan tahay systemka Ethiopia iyadoo laga dhex shaqeynaya in isbedelka la keeno sida Ethiopiyada kaleba ka dhacday Dr. Abiy wuxuu ku yimid EPRDF ama xisbigii talada hayay ee baarlamaanka aqlabiyadiisa ku guuleystay isbedelka ka duwan way adag tahay inuu deegaanka ka dhaco Abdirashid